بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وحن ربنا ذكر سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحيلتها هاي قدوميها قبل كي حجندي سيح اللي بعنا علماء الدين كدقنك هوينك دلنا يراد الصحافة ومالين نجوين مانتا ومالين إلهي نقسمي نقوم هذا علينا ولا نهاي الحمد لله الله يمهد وسقنات أنت كديب runtii dareenkayga markaan cabiro waxaan aaminsanahay waqti munaasaba inay ku soo aaday waaraana waa gaaraa qofka bini aadanka ah hadduu rabbi ku xiran yahay rajadiisu mid jirtay ahaanee marka gudoomiye axmed nuur cali jimcaale walaalkay waxaan leeyahay aad u mahadsan tahay dulqaadkii iyo sabarkii badnaa oo aad muujisay sharaf ay tahay iyadoo uu joogo gudoomiye iyo gobolka iyo ku-xigeenkiba in aan hortiina soo istaago waxay tahay fursad waayo maanta waa maalin taariikhdu ay qorayso waxaan xasuusanahay annagu waxaan ka mid nahay barakaad dadkii baahiyaha u qabay ee burburka markuu dhacay caruurahooda lacagaha ugu soo diranayay markii la kala irdhoobay markay aafada nagu dhacday markii aan weynay oo ay dadka Soomaaliyeed noqdeen kuwa iska daba wareega hooyada Soomaaliyeed waxa ku dhacay xaalad adag ka dhimay kugu dhimay waxaan xasuusanaynaa barakaad waxay ahayd shirkadii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed lacagta ku soo gaarsiisa qabiilka qofka iyo magaciisa in la raadiyo laakiin maanta waxaan maraynaa dhaweeye iyo horumarada ay sameynayso allahaas ama hadda iska leh dhalinyaradii ku dhashay burburka inay ka wada shaqeynayaan waxa ay taabanaya inta dhalinyaro ee ka shaqeynaya oo hooyo Soomaaliyeed ee dhashay dabka loo shidaayo waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa mahadaas waxay u sugnaataa Allah subhanahu wa ta'ala ka sokow madaxweynayaashii laga soo bilaabay Cabdiqaasin Salaad Xasan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaradii la shaqeynayay waxay soo galiyeen xilliga ku meel gaarka juhdi badan iyadoo laga cabanayo in dadkan ay xuquuqdooda helaan alxamdulillah madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ugu dambeyn ku guuleystay inay xaqiijiyaan in laga qaado xanibaadda marka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhaweynayaan arrinkan waayo iyadoo aan qabiil aynahayn hantidooda ku aaminanay dhigteen waxaan rabnaa marka sida ugaaska uu sheegay dawladda Mareykanka in aan u mahad celino weydiisanana in la siiyo magdhow intii dhibaatada loo geystay dad aan dambi geysan laakiin ana aaminsanahay dad kale oo Soomaaliyeed inay dulmeen iyo dana kale kuwa kale iska leh marka anaga dhexdeena ayaa isku maqan waana lagu maqan yahay waa kala maqanahay waana wada maqanahay dhibaatada halkaas ay ka timid sidaan isleeyahay waxaan rabaa marka inaan dhaho waa laga qaaday xanibaadii laakiin magdhowgi inaan dhahno adduunka waan rabnaa madaxweynayaashii hore waa u mahad celinay kuwana waa u mahad celinaynaa man la yashkuru naas ma la yashkuru Allah qofka aan maaragtay u mahad celinin qofka bini aadanka abaalka u galo ilaahayna kuma shukrinayo waxay la tahay marka ugu dambeyntii meesha aan joogno oo aan rabno inaan ka ruqaansano haddii aysan nabadi jirin abni jirin horumar ma imaanayo waxay la tahay marka ummadda Soomaaliyeed waxa inagu dhacay ma weydiin karno qof kale annaguna isma weydiin karno maba garanayna xanuunkana ay meeshu inaga hay waxaan rabaa marka magaaladan waxay u baahan tahay sida dhaqaalaha loo ilaalinayo guryaha loo dhisayo hantidaan u fiirinayno in aan u ilaalino amnigeedana loo ilaaliyo anu kaasan qabaa amniga waa muhiim marka hambalyaan leeyahay walaalkay gudoomiyaha Axmed Nuur iyo dadka Soomaaliyeed ee u adkaystay ku sabray waxaan nahay anagu haweenka gobolka Banaadir hadanahay ama haweenka Soomaaliyeed civil society-ga waxa fadhida Caasha Shaacuur iyo maartay Hinda oo ayaguna civil society-ga nagala jooga batuulo waaba hadli doontaa walaashay iyadana laakiin anagu haween ahaan waxaan ahayn dadku u istaagay adduunka weydiiyay warqadaha u qorayay in laga qaado xayiraadda waxaan soo istaagnay banaanka daljirka daasoon annagoo dhahayno ma ogolaanayna laga qaado barakaad xanibaadda
maantana maxaan joognaa waa dabaaldeg marka sabarka wax walba lagu gaaraa gudoomiye waa mahadsantahay waa ku hambalyeynayna waxaan rabaa si gaar ah maamulka iyo munaasabadan dadka soo agaasimay inaan ugu mahad celiyo casuumaada in casuumeen maalintan ugu weyn aan isleeyahay caawa iyo maalmaha soo socdaba waa u dabaaldegi doonaa maalin kalena hadduu ilaahay idmo ayadoo magdhowga la bixiyo inaan xafladeynana waa rajaynaa waa mahadsantahay gudoomiye hambalyo haweenka Soomaaliyeed way taageersan yihiin wax walba oo wanaaga xumaatadana ilaahay naga dulqaado ilaahayna dawladnimadan wax ku helnay dawladda noo waarto waa mahadsantihiin